waxaa maanta noogu soo booqday xafiiska TV-ga qaranka ee laantiisa Norway gudoomiyaha xusbiga wadani injineer Cali Cabdilaahi Bulxan. Cali mar hadda tahay gudoomiyaha xusbiga wadani ee laantiisa Norway diiwaangelintii ayaa ka socota dalka waxaana ka bilaabantay gobolka Togdheer waxaana loo diyaar garoobayaa si dadku ay codeyn lahaayeen 2017 si ciddii bedel lahayd xukuumaddan maanta jirtay Axmed Maxamed Maxamuud Siilaayi oo hogaaminayo ciddii bedel lahayd ay dadku u doortaan oo hal cod uu qofku ku soo baxo. maxaad xusbi ahaan odor lahayd shacabka reer Soomaaliland ay rabaan inay isdiiwaan geliyaan siba maanta wax la maraya gobolka Togdheer maxaad odor lahayd? bismillaahir rahmaanir rahiim. horta marka hore intaan su'aashaada u gelin waxaan doonayaa halkan inaan ka salaamo dhammaan dadweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland meel kasta ay joogaan gaar ahaan waliba kuwa ku sugan imika waddanka gudihiisii oo arrintan ay aad u khusayso. marka labaad waxaan doonayaa inaan ka salaamo halkan salaanteeda u sii fidiyo taageerayaasha xusbiga wadani oo aan ka socdo anigu iyo madaxda howlwadeennada iyo dadka ku hawlan arrimaha noocaas ama arrimaha xusbiga wadani. haddaan usoo daadego marka su-aashaadii ahayd waxaan u arkayaa arrintani waa arrin aad iyo aad muhiim u ah oo ay tahay in laga qayb qaato oo weliba si wanaagsan looga qayb qaato oo aanay magaranaysaa ku jirin madmadow. marka dadku waxaan aad iyo aad ugu boorinayaa ama aan ugu dhiirigelinayaa inay si wanaagsan uga qayb galaan. ilaa imikana sida wararku inagu soo gaarayaan waxba maxma si wanaagsan bay socotaa taasoo ay ku amaanan yihiin komishanka qaranka dhammaan xusbiyada iyo dawladduba oo aad moodo inamka sidii loogu talagalay inay hawsha wadaan. gudoomiye waxa dad tiro yar ayaa laba jeer isrejistareeyay qofkuna mar hadduu laba jeer isrejistareeyo wuxuu miskireelayaa inuu codka dhiibto 2017 maxaad kula dardaarmi lahaydeen xusbi ahaan haddaad tahay gudoomiyaha xusbiga wadani laantiisa Norway maxaad kula dardaarmi lahayd dadka raba inay laba jeer isrejistareeyaan? waxaan kula dardaarmi lahaa oo aan doonaya halkan inaan uga sheego dadweynaha nooca ku dhaqma horta dadkaasi waxa weeyaan laba dambi bay galeen. marka hore iyagaa dambi iska galay shakhsi ahaan waayo xuquuq ay lahaayeen bay luminayaan hadhowto oo ay magaranaysaa qof ku dooran lahayn ama ciddii ama xusbigii ama shakhsiyaddii ay dooran lahayn bay luminayaan. talabaad waxa weeyaan dee qaranka oo dhan bay dambi ka galeen. marka waxa weeye dadka noocaas waa in magaranaysaa ay ka waantoobaan inaanay dadku weynuhu ku fikirin waxyaabaha noocaasa oo ay dadku magaranaysaa si wanaagsan uga qayb qaataan oo ay diiwaangelinta si sharaf leh mar hadduu markiisu uu qaato qofkii dee sida sharciguna dhigaya ama aaladahan imkaan ismaalayna ay sheegayaan ama dee kolley qof laba jeer magaranaysaa ku noqon karaa ma jiro markiiba waa la qabanaya. marka qofkaasina waxa weeyaan wuxuu luminayaa xuquuqdii shakhsiyaan u lahaa. waxaa laga yaabaa inuu xarigna mutaysto. marka waxa weeye taas aad iyo aad baan uga digaya inay dadweyne ku kacaan. komishanka qaranka oo inoo wada diiwaangelinta oo si ay doorashadu u dhacdo 2017 iyagu ka mas'uula sidaad u aragtaan xusbi ahaan mar haddaad tahay gudoomiyaha xusbiga wadani laantiisa Norway sidaad u aragtaan hawsha ay maanta hayaan? bismillaahir rahmaanir rahiim. alxamdulillahi rabbil caalamiin. horta anigu waxa weeye saan u aragno xusbi ahaan ilaa imika ama hawsha hayaan baa lagu qiimeynayaa. marka imika waqtigan ilaa inta ay hayeen waxa cad inay si wanaagsan u shaqaynayaan oo ay hawshii magaranaysaa loo igmaday ee ahayd inay magaranaysaa maamulaan doorashadan iyagoo dhexdhexaad ka noqda ilaa imika waxa si wanaagsan bay wadaan waana ku hambalyaynayaa shaqadooda ay gudanayaan. maxamed jaamac dhiif TV-ga qaranka Oslo Norway.